بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa maanta inaan halkan ammaan uga jeediyo xulka qaranka 7 jirada oo markii ugu horeysay taariikhda ka qayb galay tartanka afcon oo ka dhacay dalka Algeria magaalooyinkiisa Algiers iyo Constantino sida ogtiin xulka wuxuu ciyaaray 3 ciyaarood laba waa laga badiyay midna wuxuu gal barbaro maadaama dhalinyaradu ay taranka ku cusbaayeen waxay soo muujiyeen inay si aad u dadaaleen aad u ammaaneen waxaad arkayseen markii hadda qiimeynta la sameeyey 11 qof oo ugu fiicnaa tartanka waxaa ka mid noqday Idris oo ka socday 7 jirada Soomaaliya waxaan rabaa marka inaan ammaan iyo bogaadin dhalinyaradaas aan u jeediyo kaalinta ay ka qaateen sidaad ogtiin Afrika waxay hawaay 54 dawladood 12 dal oo u horeysan soo galnay nasiib wanaag 6 qaybood oo Afrika loo qaybiyay laba dal ayaan waxaan ku ahaynay annaga iyo South Sudan nasiib darro South Sudan waxay ku dhacday da'da taas oo isu tagli weysay sidoo xeer ku dhigayay 4 qof hadii ka weynaa da'da 17 jir ma qayb galaa tartanka kooxdaasu South Sudan sidaas ayaa lagu soo reebay 12 dal oo kale waxaa haray Soomaaliya Zambia iyo Burkina Faso aad iyo aad ayaa marka dhalinyarada 17 jirada loogu ammaanay tartankaas Soomaaliya oo dhan aad ay ugu faraxsan tahay annaga xiriirka Soomaaliya kubadda cagtana waxaan leenahay wad mahadsantihiin waxaa kaloo rabaa inaan idin sheego dhalinyaradaas da'da 17 jirada ka yar maadaama kubadda cagta adduunka xeer loo sameeyay 17 jirada sanadkan waxay qayb galayaan 18 jir kii ka weynaaday iyo kuwa hadda 17 ka jiraba haddii la yiraahdo December waxay qayb galayaan under 18 oo ah Sakaafo insha Allah waxaan rajaynayaa ayagana in guulo ay soo hooyaan xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wuxuu ballan qaaday dhalinyaradaas in la isku hayn doono ilaa ay ka gaaraan heerka ugu dambeeya oo ah sanyarka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno kubadda cagta ma soo karto haddii aan dhaqaale inaan lahayn kubadda cagta waa meel ganacsi ay noqotay adduunka hadda ganacsiga Soomaaliyeed marka waxaan ka codsanaynaa in ay maal gashadaan kooxaha qarankana ay taakulayaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkadda Hormuud oo sanadkan noogu deeqday $20,000 sida ogeedeen Hormuud waxay naga bixisay hotelkii 10 maalin la joogay ee Addis Ababa dalka Ethiopia taas waxay ku suurta gashay in aan MRA ka saarno mar labaad marka hore waxaan ka saarnay Digfer mar labaadna inaan ka saarno Ethiopia annagoo ay subna inaan tagno meeshii nasiib darro hal wiil oo la yiraahdo Cabdi Xaafid ayaa nagula celiyay inta kalena way noo gudbeen Hormuud marka aad iyo aad aan u mahad celinaynaa gacantaas ay ka geysatay iyo dadaalkaas aad iyo aad u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan u mahad celino Suldaan Faahiye oo ah risto maqaayad ku taala Istanbul dhalinyarada lacag ugu deeqay wuxuuna ugu dhigay macallinkooda aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay ganacsada kale oo Soomaaliyeed inay ku daydaan oo ay aad iyo aad u taakulayaan qarankooda Soomaaliya waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo 2 wiil oo shirkad leh Dubayos leh oo ka timid Ingiriiska ayaguna dhaqaalay siiyeen waxayna ugu deeqay isla ciyaalkay siiyeen hotelkay la degeen lacag ugu deeqeen ayagayna gacanta ka saareen ayaguna aad ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo rabaa inaan u sheego ganacsada Soomaaliyeed sanadka kan 2023 hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ciyaaraynaa under 23 oo Addis Ababa ka dhacaya under 15 oo ka dhacaya Uganda December iyo under 18 oo asna December ka dhacaya Uganda waxaan rabaa ganacsada Soomaaliyeed inay ku xayeysiistaan ganacsigooda uguna deeqaan qaranka dhaqaale aad iyo aad marka ayagana aan u soo jeeday artaas waxaan rabaa inaan sanadkan waxaan qayb galaynaa 3 kooxood ayaa waxay aadaysaa koobka iyo koobka horyaalada
iyo Sakafa saddexdaas kooxood oo Soomaaliya ayagana baxaya ayagana waxaan rabnaa sidoo kale inay ay ku xayisiistaan way ku waxayaan sida arkayseen tartankan waxa la yiraahdaa under 17 Afcon Total Energy waxay bixinayeen qalabka oo waxay bixinayeen sponsorka ka ayaan waxa kale oo sponsor ka ahay shirkadda la yiraahdo dharka oo la yiraahdo Ombro waxayna ku baxsheen dhaqaale aad u fara badan waxay ku soo bandhiganayeen ganacsigooda tartankana saas uu ku naajaxay marka ummadda Soomaaliyeed ganacsiga Soomaaliyeed waxaan leenahay maal gashada kubadda cagta waxaan rabaa inaan kala mahad celiyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga ilaa Maxamed Barre oo wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka Khadija Maxamed Diiriye wasiirka dowlaha arrimaha amniga gudaha xildhibaan Maxamed Cali Xagaa iyo agaasimaha migrationka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo dhammaantood qayb nagala qaatay sidii uu dhalinyaradaas 17 jirada ah ay u gaari lahaayeen guulahaas ay soo gooyeen naloo fududeeyay wax kasta uga baahneen dhinaca xukuumadda waxa kale oo mahad celinaa isbitaalka Dayib Orgodan Digfaar iyo wasaaradda caafimaadka oo ayaguna qaybtii hore MRI-ga noo saaray ayaguna aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa waxa kale oo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii fariimaha noo soo diray oo dhiirigelinta ahay waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waan idinka qabnaa waxaa kale oo rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed guulaha la gaaray waxaa kamid ah 4 dhalinyaro ciyaartooy yar ayaan ka keenay dibadda oo aan qaarkood ay ku dhashay intooda badan ay ku dhasheen waddanka dibadiisa waxay la joogeen muddo 20 maalin xulka qaranka way ciyaareen oo arkayseen intooda badan afartooda oo ciyaareen waxay ahaayeen ciyaartooy talent ah waxay noqdeen ayagoo sida ka arkayseen warbaahinta ayagoo aad u faraxsan calankoodii heestoodii bartay wadaniyadii arkay waddankooda u ciyaaro aad u faraxsan ay dalkoodii ku noqdeen waxaan rabnaa marka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta qorshihiis wuxuu yahay inaan diiwaan gelino adduunka dhan dadka dhalinyarada oo ku dhashay oo kubadda cagta ciyaara inaan diiwaan gelino si looga faa'iideysto xagga ciyaaraha iyo in dalkooda ay bartaan aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa waaxda saxaafadda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waana mahadsantihiin iyo dhammaan guddiga fulinta shaqaalaha iyo stakeholderska dhammaantood oo kubadda cagta ka shaqeeya aad iyo aad u sharfantihiin waxaan rabnaa sanadkan 2023 in aan tartamada maxalliga ah qabanno tartamada heer goboleed oo ka qayb qaadano oo Sakafa kaaf inaan ka qayb qaadano oo qaaradda iyo adduunka oo ah in World Cup ciyaarna sanadka dambe hadii la yiraahdo horaantiisa intaasoo dhan waxaan rabnaa inaan qayb ka qaadano ummadda Soomaaliyeed iyo dadka kubadda cagta jecelna waxaan rabnaa inay garab istaagaan kubaddooda cagta inaan horumar iyo barwaaqo isla gaarno aad iyo aad u mahadsanyihiin